aniga 4 station ka soo shaqeeyay kana sarahan nolosheedina lama kulmin waxa ay sheegaysaa iyadoo hadday la kulantay gabdha qaba ama iyadoo ay ku dhacday walaashan ha noo timaado inaga la raadinayna xaqeeda yeelaniga gabdhaha kale la aadin ka aniga ahaan waxaan ka soo shaqeeyay 6 station dhawaad wali ma aanan arkin station maxaa la yiraahdaa dhibaato noocaas aan kala kulmo ama shaqadayda maxaa la yiraahdaa lagu rakaatay in maxaa la yiraahdaa sharaftayda aan shaqo ku bedelasho waxa la yiraahdo oo soo ekad ribadka ay sameysay ku qornaa hadda halkaan ka shaqeeyo dhawaad 30 wiil ayaan waxaan la fariistaa shir anoo kaligay ah lana shaqeeyaa mid kamida wali ugu ma xadgudbin mana ku arkin gabigoodna madaxaan u saaranahay si sharaf iyo ixtiraam la leeyahay dhaqamaa agaasimaashay intaas aan la soo shaqeynayo ugu ma xadgudbin ma garan karo walaahi aniga meesha ay ka keentay farxiyo inay tiraahdo gabdhaha Soomaaliyeed muqdisho aqoontoodu way hooseysaa maxaa la yiraahdaa waxa shaqada ay shaqeynayaan wuxuu ku bedeshay sharaftooda oo runtii dareenkayga aniga aad u kiciyay maxaa weeye qalad waaye waxaas in maxaa la yiraahdaa anagoo sharaf leh hadii qof iyo laba ay aragtay oo waxaas sameynaya waa inay keento oo cadeyn u keento anaga xitaa maxaa la yiraahdaa ayna tusto si anaga xitaa tusaale ay noogu noqoto aan gabar kale Soomaaliyeed markaan aragno aan ula shaqeyno oo maxaa la yiraahdaa aan u garab istaagno si gabdhaha Soomaaliyeed aan loogu xadgudbin أنا واحد كسر شقية ديران أفريقي في وعالمي متشرة واحد يبقى أما حدثنا ولا يجي ولا يقول لي واحد كل بدلن كرتا شقة كده ربطي إنك كشقة شرفت كل بدلن كرتا تأثرتنا وحن من سنة إن نبوجن المتلكر اللي ما قبلها سحبين كهول قال مقالة المقدشو أنا وردن أيوة وحن كسر كيدنا بوجن الشخص القري كهالله إن دبتلو جست قبلها سحبين هدي أشياء قبلها سحبين تدي بتلو جست وأنا لصاب بندقو وكو يلا بالله يرادو قف كسر دباتو لو جيستو لكن يدو aan jirin wax dhibaato gabdhaha saxafiyiinta loo geysto ma qurux badna in la soo bandhigo gabdhaha saxafiyiinta in iyagu buug iska qoraan way mudnayn laakiin waxay mudnayd in iyagu sumcadooda iyo sharaftooda ay bulshada ka dhaadhiciyaan oo u sheegaan inay la sharaf yihiin gabdhaha kale ka shaqeeya shaqooyinka kala duwan aniga 2005 dabayaaqad ilaa abtino waan shaqeynaya wax nala weediyo ama dhibaatooyin aan la kulan ma jirto muqdisho oo waxaan joognaa oo marxalada kala duwan ee soo marnay waxaan dhihi karaa wareysidii shalay laga qaaday ee hay'adda BBC da isticmaalaysay waa arin aan dhihi karno iideh loo sameeyo buugan oo ay qayb ka tahay in hay'ad warbaahineed oo caalami ah in lagu bahdilo sharaftii gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed arinta kalena waxay tahay in aan arintaas ka dacwoon doon haduu laana gaarsiyo hay'adaha ku saboorta gareeyay arinta inay soo baxdo buugan dabcan buugan marka fiirisid waxaad arkaysaa in gadaal ay ka joogaan rag oo arintan ay riixayaan oo luqadaha ama buugan ay soo saareen rag aan naqaano hebel iyo hebel aan dhigi karno laakiin la soo marsiiyay gabar suxufiyeed lagu yiri ku dhawaaq barnaamijka adaa sameysay waa arin aan laga filayn gabar Soomaaliyeed oo haddana saxafiyada inay gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda ay buug iyo warbaahin caalamiya intaba ku sheegto waliba taas waxay qada ka fog walaasha farxiyo waxaan leeyahay walaashay gabdhaha Soomaaliyeed sharaftoodu ma ahan wax yar oo mashruuc lagu raadsan karayo warbixin aan arkay waxa kamid ahayd inay tiri gabdhaha aqoon ma lahan oo mid maadiya macnaheedu waxay tahay taasina inay ay marqaati ka yihiin dadka Soomaaliyeed gabdhaha saxafiyiinta oo midda ugu yar ay maanta tahay batch qaar master diyaarinayaan kuwana hadda ay ku guda jiraan inay heerkii koobaad ee batchka ay wadaan marka taas waxa leeyahay inay gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda ay meel uga dhacday anigu afkaygu ma karo waxyaabaha ay tiri gabadhaasi runaantii farxiyo waxayna la gaartay meesha ugu dambeysay dhowr mawduuc oo arintan ku saabsan ay ka hadashay marar badan waan ka aamusnay si aan u ogaano bal farxiyo in meesha ay ku joojin doonto laakiin hadda waxay gaartay meesha ugu dambeysay sharafta gabdhaha wariyaasha ay suuqa geysay oo ay iibsatay mideeda kale kuma yeeli doono in arintan ay sii socoto ama hay'ado kale budgetyo looga qaato dhammaan hay'adaha arintan farxiyo ku caawiyay dawladda Sweden ee safaaradeeda Soomaaliya oo arintan ku gacan siisay sida buuga ku qoran hay'adda international media support iyo Fojab dhammaantood waxaan la geli doonaa dacwad arintan waxaan gaarsiin doonaa garsoorka wadanka farxiyo arintan xadgudubka ah ee gabdhaha ay kula kacday waxa loo baahan yahay in la keeno cadeymo ku aadan gabdho buuga waxa ku qoran in 13% gabdhaha ay cadeeyeen in arintan lagu la kacay
waxaan u baahanahay gabdhihii arrintan cadeeyay oo cadeeyay in agaasimayaashooda ay ku xadgudbeen. waxaan ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ee magaalada Muqdisho ka shaqeeyo. waxaan xarumaheena ugu shaqeysnaa si sharaf leh, waxaana waxba ka jiraan ah ama ay tahay wax naga been abuurtay ama aan sal iyo raad toona lahayn. daraasadda ay sheegayso ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed magaciisa lagu sheego ay sameeyeen. waxaan ka codsanaynaa isla markaana aan ururkaasi ka rabnaa inay raaligelin ka bixiso tacadiga iyo xadgudubka ay u geysatay gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan nahay gabdhaha daayar ka shaqeeya magaalada Muqdisho, waxaana ku shaqeysanaa aqoonteena, waxaana sharaf iyo cisi noo haya maamulka aan u shaqeyno. waxaana station walba aan ka howlgalnaa ugu shaqeynaa baahi stationkaasi oo noo qaba iyo xirfadii aan leenahay. ma jirto xadgudub gaar ah ee loo geysto, ma jirto waxyaabaha buugaas la sheegay ee ku xusan in aan leenahay ama ay jirto gabar ku dhaqanto. waxaan mar kale anoo ku hadlaya magaca gabdhaha saxafiyiinta daada yar iyo gabdhaha Soomaaliyeed baan leeyahay wax kama jiraan waayo. waxaan ka codsanaynaa in raaligelin iyo in ay soo cadeeyaan waxyaabaha ay ku soo xuseen buugaasi oo ay sheegayaan in gabdhaha saxafiyiinta ay ku dhaqmaan ama ay ku shaqeystaan. farxiyo gabar walaashaan waaye, annaga afaareeda shakhsiyaad geli mayno, aflagaadayn mayno, waxa iyadu noo quurta u quuri mayno. walaashaan waaye, walaashaan waxaan ka codsanaynaa gafkaas ay nagula kacday iyo sumcadarradaas iyo daamijka ay u geysatay sharafteena because waxay sheegtay waxay ka turjumayaan gabdhaha wariyaasha Muqdisho Soomaaliya oo dhan. adduunkana mar kasta ma aha wadankaaga inaad sawir xun aad ka bixisid nooc kasta oo ay tahay, ma ahan haddii iyada xitaa shaqada toobigaas inay qabsato gebigeeda toobigaas inay iska dhaafto waaye. haddii ay rabto inay maxaa la yidhahdaa raadsanayso waxyaabo kale oo iyada oo ay ku helayso maxaa la bajadii ay ku helayso waxyaabo kale gabdho dhibaataysan baa jira oo maxaa la yidhahdaa aan kufsi kaliya aysan ahayn dhibaatada gabdhaha wariyaasha ha samayso. gabdhaha ay leedahay waa aqoon yar yihiin, haddiiba ay jiraan aqoontoodana kor u soo qaada ha samayso, laakiin inayna fadeexaysato oo annaga sharafteena ay ku raadsato bajadii iyadu ka bariisayso taasu ma ogolaanayna farxiya. annaga waana ka xunahay walaashan, waxaanan u quurinayna noo quurtay annaga. maadaama aan maanta halkaan isku nimid dad badan ay ka dambeeyaan waxaan leenahay arrintaas waa arrin gabadh fala suxufiyiin Soomaali loo geystay. waxay yiraahdeen oo kala buuga ku qoran in 3 idaacadood kaliya ay ka bad qabaan inta kalena ay tahay hay-adihii dawladda ayaa ku jirta warbaahintii dawladda dadkii ka shaqeynayay oo wasaaradii warfaafinta dhameed oo lagu xadgudbay hay-adihii kala warbaahineed oo maxalliga iyo kuwa dawliga afafkooda ku hadlana anaga ka tirsanahayna aan ku arkin waxaas. marka waxaan dhihi karnaa arrintan waa mid anaga noola soo jeestay, waa mid aan ku sii midoobi karno cid walba isku dayadana aan sharciga la tiigsan doono.